دان ku baaqo dawladda ridada in la dilo meesha lagu arka laakiin laygama gudbinayo idaacada lagama soo deynaa waa layga jari doonaa marka energy iga dhameyn warkaas in laga jarayaan waa ka jaraysiin ya dawladda hala dilo madaxweynaha hala dilo ra'iisul wasaaraha hala dilo baarlamaanka hala dilo wasaarada hala dilo hadaan dhaho ayga goynina alaasan ku baaqaa ummadda Soomaaliyeed anigu ma wada gaalaysiinay laakiin dawladda maanta kaamirada iga duubayso Soomaali isku sheega waxaan qiraa inayna muslimiin ahayn laano kitaabka Ilaahay kuma xukumaan qawaaniin iyo dastuur sharci dejiye gaalay ka marqaataan inay ugu xukumaan sida daraadeed ma aamisni inay yihiin dad muslimiin ah Soomaaliya gaala joogto meeshan jooga maanta anu godka jilci waalday anu aqoon uma leh Ilaahay baa iga cimilo waa sida asxaabtiina qaar kamid ka xugmiya dadka jooga waxaan ka aaminsana gaala inay yihiin dawladda bisanba ula jeeda dawladdu inay gaala tahay iyo wixii hoostago la hal maal la shaqeeyo diin ya gaala waa lagu jihaada kufaarta wadan kasta ka timaado murtadiinta lagu jihaada ala loosta lagu jihaada mid kasta biista lagu jihaada saas aaminsana aniga meeqa sana jeclaadide kooxda ma ahan adoo u shaqeynayso waxaad wacyigelin u sameynaysaa dhalinyarada da'da yar oo aad tashkiilinayso ilaa imisa sanad goorma ku soo beertay su'aasha soo kala ka jawaabi karaa 7 sano ayaa hawsha ku dhacday maxaa qadanaysiin dayas diinan baranay dadna waa barayso ma badnayn intaan dadka bara laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala mararka uu karsiyo waa bari jira dadka diinta dilkaasi waxa soo dhan wada baabi'iyo maxaa marka kalaha wadanka u haysan ay ku maxaa ka aaminsantaa wadanka waxa rabnaa kitaabka Ilaahay sunnada in lagu dhaqo hana lagu dhaqo daaqudka dastuurka hana laga dhaafay qodobada degsan kitaab aan leenahay anagu ma nihin gaalo muslimiin baan nahay hana lagu xukumo kitaabkeena diin lagu xukumo way mata Ilaahay wuxuu faqtaluhu war madaxweyne farmaajo aan ugu xukumo door waxana la xukumo diin islaamka lagu xukumo hatta laakiin diin islaamka lagu xukumaynin أنا مبدئيا أنا كلاونا ديار مني بس هنا قلت الدين نقواعس ساس كذا دعسة هو علمه دي مساكين مسلمين أنا ودم بكم جني فكر كي قال لقمة دبعته إلا كفار ما هنا أنا كبعض من صوماليا مسلمة دينا أنا سكاهم سنة هذا كلام كاهم سنة مرتي دولة لا تاجر دولة ما عارفين دولة لا تاجر ما عارفين أنا دولة الإسلام كان تاجيرة دين الإسلام كقتلس حكم الإسلام إيش اسمه دولة السعودية دولة الفدرال كاليرة مقعه هو قديل ها أمانة أسقنا أنها ويلي دولة الفدرال قيار إلا بها اللي يقول شيء عنه الشاهد نيه واحد قيار اللي هو يا maxaan karba fasiraadada inta arkaa way igu aad dawladda ridada daana aaminsaneyn ma fikir dagaal ma la igu soo qabtay dawladda ridada daana aaminsaneyn aqeedadeeda ya may iimaankaas wali ma helin ilaahay baan ka rajeynaa ilaahay inuu arsaqo laakiin waa ku tala jirtay inaad diyaariso maanta kale aad u haboon tahay inaan isku qarxiyo ay waana haysan qaraxa gaala nacayb baa iga batay gaalada aad u nacba iyo waxa la shaqeeyo oo kitaabka ilaahay ku xukuntamay dadka isku qarxinaysan ay wada gaaliyihiin ya cadeen uga haysataan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadkiisan uga haystaan ku yiri kelimada la ilaaha illa allah macnaheedu ay daabartadu dhaxgashay kitaabka tawxiid oo quraanka tafsiirkiisu waa wada tawxiid aadaalacatid waxaad ogaanaysaa xukunka oo leeyahay qofka muslimka naftiisa iyo nafta ka soo horjeedo waxa lid ugu waaqanaanu maxaa ku beenin kartaan marka waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannama aayada dhahaysa maxaad cadeena oo aad uga gambanaysaan uga leexan kartaan waxa uga gambanahay waxay tahay nin mu'min ma badilaya baan ugu mu'miniin ma aan dawladda ridada